Audio Jungle. webiga Shabeelle ee mara deegaanada hoos yimaada degmada Buulaburda ayaa waxa uu gabi ahaanba jaray dalagyadii ay taabanayeen dadka beeraleyda ah. Dadkani beeraleyda ah ee ku nool deegaanka Galmadoobe Bari ayaana waxa ay sheegayaan in ay awal ku dhib qabeen marka ay qudaartoodu ay soo go'do meel ay u iibgeeyaan aysan jirin maadaama degmada Buulaburda ay go'doon tahay ku dhawaad 7 sano. waxaana ay xilligaani ay la daalaan dhacayaan xakamaynta biyaha mana ahan kuwa la xakamayn karo maadaama ay si xawli ah ay ku socdaan biyaha webiga. saameyn noocan oo nagu yeeshay kilibaara liiraan ka askar beerta biyaha ka soo baxaan waxa ay sheeg qudaar ka seenay gooy ayaa hore 25 geedo liinayna gooyeen 5 geedo kii hadirta hadan waa gooyraba way ka buuxaan yaaya waana gooyeen galay waana gooyeen wax walba waana gooyeen wax walba inagu sameeyaan biyaha sanad wallahi soo baxay sida aad u jeedin webiga waa kan beeraha soo dhan ugu soo tagnay ilaa hore qudaartii kale ada mooskan iyo maartay hogaagan galeyda iyo qudaar kale hordan ku taa waxaan ku tacaalo hayna saako dhan waa arkaysan ilaa xalay waa u taaganahay marka dhibaatooyin badan oo webiga kulay nagu sameey alxamdulillah laakiin ilaahay wax uu keenay waa magaalada awal iska go'doon ahayd qudaartii awal qiimo maartay meel loo qaada walaahina hadana naga sii go'day marka qasaarooyin badan jiro laakiin waa ilaahay wuxuu keenay wax dhibaato oo hadda lagu eedaa qof oo gooni noo keenay ma leh qudaarta taabtiin waxa qudaartan taabna moos babaay saytuun leen yaanyo wax kasta adiga waa isku daynaa qudaarta yararka oo haata maartay vegetable ka waa tabcana alxamdulillah waa laakiin waa dhibka webigaaba 3 bilood hadda naga maqan yahay 3 bilood naga maqan markii saddexaad hadda qudaarta dib nooga gooyo Askari Ali Raago warbaahinta qaranka Buulaburda.